بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دوادا صافي channel وان كغا هادلنو arrimo faa'iido u leh bulshadeena. maanta waxaan ka hadlaynaa oo aan horay rabaa inaan u sii wado topic-geeni ama mawduuceeni ku saabsanaa maqaarka. videogii hore waxaan kaga hadlay qodobkii koowaad iyo qodobkii labaad ee maqaarka aad ku xanaaneyn lahaydeen. maanta qodobkan waxaan kaga hadlayaa exfoliating waa qodobkeeni saddexaad anoo idinka ballan qaaday inaan videoyo ka hadlayo maqaarka aan idiin soo gudbiyo. videoga waa kii labaad waxaana kaga hadlaynaa waxa la yiraahdo exfoliating marka maxay tahay. exfoliatingka waa hab jirka ama wajigaba lagaga qaado wasaqda. marka exfoliatingka marka why aan u exfoliate garaynaa wajigeena. waxaan u exfoliate garaynaa maqaarka sida aad ogtihiinba maqaarkeena wuu iscusboonaysiiyaa. markuu iscusboonaysiiyo waxaa samaysma wax la yiraahdo dead skin ayaa maqaarka dushiisa ku samaysmaya. marka dead skinkaas haddaadan wajiga ka exfoliate garaynin oo aadan ka hagaajinin maqaarkaaga wuxuu ekaanayaa maqaar aan nuuraynin oo rafraf ah. waadna ka garan kartaa wajigaaga marka aad gacanta marisid inuu maxay ahayto aanu smooth ahayn oo rafraf yahay. marka wajigaaga aad dareenkaas rafrafka ah ku aragtid iyo inuu daraa yahay inuu maxayto aanu iftiimaynin macnaheeda arrintaas waxay tahay wajigaaga wuxuu u baahan yahay inaad exfoliate garaysid. exfoliationka also wuxuu kaa caawinayaa in maqaarkaaga marka aad kareem ama wax marinaysid aad ku dabcinaysid ama aad ku qurxinaysid in productigii aad wajiga marisay ay wajigii u gudbo maadaama aad wajigii nadiifisay oo smooth ka dhigtay wixii aad marisidna way gaarayaan. laakiin haddaadan wajiga exfoliate garaynin waxba ma gelayaan wax raf ahoo fool xunuuna u ekaanayaa. marka exfoliationka wajiga wuu qurxiyaa wuxuuna ka dhigaa smooth. marka waxaa jira laba hab oo exfoliationka loo sameeyo. hab waa habka aan wada naqaano oo ah habka physicalka ah. habka physicalka ah waa waxaa soo iibsanaysaa product aad soo qaadanaysaa sida scrub oo kale wajigaad marinaysaa si gentle ah. laakiin waa inaad ugu xoqdaa wajiga aadan damage garaynin maxaa yeelay wajiga waa aad ayuu u nugul yahay. marka waa inaad si gentle ah ugu exfoliate garaysid. productyada wajiga lagu exfoliate garaysto sida maxay to coffee-ga qasilka ama sonkorta brown sugar-ka ah. laakiin waxaan idinkala dardaarmayaa markaad productigaas isticmaalaysaan inaad wajiga ku exfoliate garaysaan in aad isticmaashaan product soft ah. sonkorta oo kale marka aad wajiga ku exfoliate garaynaysaan brown sugar-ka waa inay ahaataa sonkorta budada ugu dhow. sonkorta xabada weyn uma fiicna wajiga markaad ku xoqdaan way damage garaynaysaa. marka sonkorta ugu budaysan ha ahaato. qasilka oo kale aad ayuu u fiican yahay. qasilka waa jeclahay waana soft waa jilicsan yahay wajiga ma damage garaynayo si fiican ayuuna u kelin garaya oo wax u kelin garaya aanay jirin. coffee-ga oo kale markaad ku exfoliate garaynaysid coffee ground ah waa inuu ahaadaa oo aan wajiga damage garaynin. si tartiib ahna waa inaad maxay ahayto aad gacanta u marisaa oo aadan wajiga xuqin oo aadan damage garayn. qodobkaas waa qodob muhiim ah. kaas waxaan kaga baxaynaa physical exfoliationka wixii la dhahayo exfoliationkii aad gacanta ku samaynaysa adiga. waxaa jira chemical exfoliating wax la yiraahdo. laba nooc ay u kala baxdaa chemical exfoliatingka AHA iyo BHA. BHA-ga marka waa anti-inflammatory antibacterial. wajiga marka aad marisidna gudaha kasoo nadiifinaya si deep ah gudaha u dhacaya oo gudaha kasoo nadiifinaya. marka BHA-ga waxaa loogu talagalay dadka maxay ahayto nabraha wajiga ku leh iyo dadka maxay ahayto skinko maqaarkooda uu saliida leeyahay. labadaas nooca loogu talagalay. BHA-ga waa acidkaas marka waxaa loo isticmaalaa markuu meel nabar kaa soo baxo inaad si tartiib ah oo khafiif ah sida ugu khafiifsan aad meeshuu nabarka kaa soo baxay aad hal dhibic u saartid
oo meel kasta wajiga nabar ka soo baxay aad tartiib u saartid sida ugu yar maadaama waxaan acid yihiin markaan acid in leeyahay hanxinahana kala cararina acidkan ma aha acidka aad moodaysaan acidkan waa acid ka soo jeeda fruit ka soo jeeda oo lab lagu sameeyay oo loogu talagalay wajiga in lagu exfoliate gareeyo ama finankaas hadda BHA ga aan idin sheegayo finanka lagu treat gareeyo ama lagu daaweeyo marka acidkaas wuxuu leeyahay concentration kala culus uu kala quwad weyn uu kala powerful san yahay marka concentrationna 1% ka yarna way jiraan 1% ilaa 2% ya ugu sareeya marka waxaan kula talinayaa inaadan isticmaalin wax percentage sare marka maxay ahayd BHA ga concentrationkiisa aad isticmaalaysid waa inaanu ka badan 1% ama 2% BHA marka aad rabtid inaad soo gadatid productigaas BHA kuma qorno dukaamada marka aad tagtid dukaanka marka aad tagtid waxa ku qoran videoga markaan dhameeyana waa idin tusi doonaaye salicylic acid ku qoran marka iibsanaysiin magaciisa waa salicylic acid haddii aad rabtid inaad jirkaaga wajigaaga si hoose u exfoliate garaysid nabrahana aad iska treat garaysid salicylic acid ayaad u baahan tahay low concentration ama quwadiisa aanay aad u sareynin low concentration u baahantiin ama mid quwadiisa yarta marka idin leeyahay waxay tahay haddii aad mid quwadiisa weyn tahay isticmaashaan wajiga iska gubaysaan marka wajiga inuu idinka gubtana idin madan aha inkastoo waxaan aanay ahayn kiimika khatar laakiin wax walba qiyaas u baahan marka qiyaasta haddaad dhaaftaan damage keeni kartaa arintaas marka hadda waxaan ka hadlaynaa AHA markii hore BHA gaan ka hadalnay AHA gaan ka hadlaynaa AHA oo iyadana acid kaas oo ka soo jeeda waxyaabo natural oo maxay ahayd fruit marka AHA da jirka waxay ka qaadaa maxay marka ku exfoliate garaysid dead skin ku ka qaadaa waana u fiican yahay maqaarka qof kasta isticmaali kara noocyo u kala baxdaa sida glycolic acid lactic acid and mandelic acid saddexdaas nooc ay leedahay saddexdaas nooc oo kala power aniga waxaan isticmaalay oo aan ka hadli karaa waxay tahay mandelic acidka marka wuxuu u fiican yahay oo kale dadka maxay ahayd tohaaraha leh dadka nabraha leh qof kasta ayuu u fiican yahay oo anfacaya sababta aan mandelic acidka idin kula talinayo waxay tahay maqaarku qurxinaya waana ka gentalsan yahay labada kale aan ka magacyadooda idin sheegay marka mandelic acidka also wuxuu u fiican yahay dadka sideena maqaarka madoob oo kale u fiican yahay marka aad isticmaashaan maqaar wuxuu idin siinayaa soft oo maxay ahayd qurux badan kuwa kale aan sheegay xoogaa way ka powerfulsan yihiin mandelic acidka marka kuwaas kale waxaa laga yaabaa haddaad isticmaashaan ama dadka qaar ay si qalada u isticmaalaan ama quantity badan isticmaalaan inay koos garayso hyperpigmentationka waxa ay yiraahdaan ama ay haaro kugu koos garayso iyadoo markii horeba acidkan aan hadda ka hadlayno mandelic acidka aan hadda idin mention gareeyay sababaha uu dawada ka yahay ay ugu horeyso inuu haaraha ka daaweeyo kuwa kale haddaad isticmaashid maadaama ay ka powerfulsan yihiin way koos garayn karaan hyperpigmentation inaad ka qaadid marka mandelic acidka dadka maqaarkeeno kale leh ayaa loogu talagalay labada kale waa isticmaali kartaan laakiin idinkulama talinayo maxaa yeelay maqaarkeena looguma talagelin waxaana laga yaabaa inay midabkaaga bedelaan oo magaranaysa ama haaro madow aad yeelatid marka mandelica tijaabiya marka aad mandelic acid iibsanaysaan ama aad rabtaan inaad isticmaashaan waa inaad meel hoose ka soo bilowdaan si qafiifa u isticmaashaan oo jidhkaaga horta aad ku tijaabisid inaad allergy ku yeelan kartid iyo in kale waa inaad isku eegtaa sidoo kale waa inaad marka aad maqaarkaaga ku tijaabisid kadib si khafiifa aad u marsataay oo aadan aad wax weyn aadan ismarinin waana inaad maxay ahayto marka aad ismarisid aadan weegii 2 goor ka badan isticmaalin weegii ku bilow mar weegii
marka aad la qabsatid oo maqaarkaaga uu fahmo laba goor ka dhig, laba goor wax ka badan ha isticmaalin. waxaad arki doontaa result degdega ayaad arki doontaa oo maqaarkaagii oo nuuraya oo magaranaysaa hagaagayaad arkaysaa. resultka laga arkayo alaabtan aan idiin sheegayo waa quick waaye, hal mar haddaad marsatid, caawa haddaad marsatid, berri markaa soo toostid wejigaaga waa ka dareemaysaa. laakiin waa inaad stebiska oo dhan martaa. step 1 videogii hore step 1 iyo step 2 yaa idinku sheegay. step 3 waaye hadda kan. stebiska waa wadaynaa, videoyo kalaan soo wadaa. marka stebiska waa inaad raacdaa oodan ka boodboodin haddii aad rabtid inaad result degdega aragtid. teeda kale maxaa la dhahay chemical exfoliatingka waxaan idinkula talinayaa more, maxaa yeelay chemical exfoliating waxaad ka arkaysaa result degdeg ah, waa ka fiican yahay physicalka. maxaa yeelay physicalka jirkiyaad xoqaysaa, intaad wax marisid xoqaysaa, marka waxaa laga yaabaa xoqidaas inay jirka ay damage garayso. laakiin chemicalka waa easy, waad marsanaysaa, jirka oo dhanna wuu gaarayaa, si hoose ah weliba ayuu kasoo nadiifinayaa. teeda kale marka aad qofka nabra leh haddaad tahay for example, physical exfoliatingka caadiga ah oo aad wejiga jajabinaysid kuma anfacayo. maxaa yeelay meeshii nabarka ku yaalay dheecaan hadduu ka yimaado wejigoo dhan aad marisid adoo exfoliation samaynaya, wejigii oo dhan aa bacteria kaa gaaraysaa. marka physical exfoliating qof nabra leh oo kale ma isticmaali karo, maxaa yeelay dheecaankii nabarkii aad wejigoo dhan ayaad marinaysaa. marka chemical exfoliating haddaad nabra leedahoo kale for example, aad wejiga bahalkaas si khafiifa oo qiyaasan u marisid, wejigii oo dhan exfoliationkii waa gaaraya, weliba si hoose ayuu usoo exfoliate garaynayaa. wax bacteria oo aad faafinaysidna ma jiro. marka waxyaabahaas ayuu ku fiican yahay chemical exfoliatingka. marka chemical exfoliatingka aan idinkula talinayana waa mandelic acid. markaad mandelic acid iibsanaysaan, mandelic acidka aan idinkula taliya aad iibsanaysaan, waa kala powerfulsan yahay, macnaheedu waxa waa concentrationkiisa waa kala badan yahay. marka waa inaad iibsataan wax aniga hadda ka isticmaalo for example waa 10%. marka xitaa haddaad percentage 10 ka sarreeya rabtid, horta hoos ka soo bilow, percentage hoose ka soo bilow maqaarkaaga si uu ula qabsado oo aad jirkaaga u fahmo. markaad dhalada koobaad dhamaysid, haddaad rabtid dhalada labaad yaro kordhi, haddaad doontid dhalada saddexaad yaro kordhi. waa inaad meel hoose kasoo bilowdaa. aniga 10% ayaan isticmaalaa. marka of course qof walba limit uu leeyahay, laakiin in hoos laga soo bilaabo oo jirkaaga waxa uu u baahan yahay iyo waxa uu qaadi kara tankiisa aad taqaanid waa muhiim. marka wixii su'aalaad qabtaan hoosaad igu soo weydiin kartaan. waxaan rajaynayaa videogan inaad ka faa'iidaysateen. haddaad ka faa'iidaysateen thumbs up, subscribe gareeya, wixii commentna hoos kusoo qora. assalaamu calaykum waraxmatullah.